bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan idinkula wadaagaynaa qormooyinka iyo qoraalka uu ka kooban yahay buugga weriye. buugga weriye waxauu si qoto dheer uga hadli doonaa warbaahinta. ma soo koobi doonno mana faahfaahin doonno ee waxaynu si toos u akhrin doonaa buugga laftarkiisa, inagoo isu dultaagi doonaa cutub cutub. daqiiqado kasta oo aynu ku soo gudbinno qoraalka buuggan waxa aynu sii wadi doonaa ilaa aynu ka dhammaystiri doonno, waxaanaad kala socon doontaan warbaahinta afka shacabka. buugga safxaddiisa 15aad waxa uu ka bilaabmayaa oo ku qoran cutubka koowaad, waxaana uu ka warramayaa sooyaalka warbaahinta. xubinta koowaad ee sooyaalka warbaahinta waxaa qoraagu kaga hadlayaa warbaahinta caalamka. xubinta labaadna waxa uu qoraagu kaga hadlayaa warbaahinta soomaalida, waana qoraalkii sikariye xuseen. waxaynu ka bilaabaynaa biijka 17aad oo ka hadlaya sooyaalka warbaahinta, waxaana qoraalkiisa uu ku bilaabay sidan: gogol dhig. arrin kasta oo wax laga qorayo ama laga faalloonayo, dadku waxa ay jecel yihiin una xaqan taagaan in ay wax ka ogaadaan halka ay salka ku hayso ama ay ka soo bilaabantay. tusaale ahaan, marka laga hadlayo warbaahinta, waxay dad badani isweydiinayaan goortii ay xirfaddani bilaabantay iyo heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay. intaynaan dhex gelin taariikhda warbaahinta iyo sidii qalabka warbaahinta u soo kala horreeyey, waxaan jecelahay inaan xoogaa dul istaago faraqa u dhexeeya isgaadhsiinta iyo warbaahinta. midda koowaad, haddii aan ku horreeyo isgaadhsiin, waxaa loola jeedaa hab kasta oo aadmigu xog isugu tabiyo. waxay qayb ka noqonaya isgaadhsiinta dabka la shido ee ay reer miyigu isku wargelin jireen marka ay taagan tahay dhacdo ogeysiis mudani, sugaantii la kala waarin jiray, iyo sidoo kale khudbadaha munaasabadaha la isugu soo baxo laga jeediyo. dhammaantood waa isgaadhsiin. warbaahin ama warfaafin iyaduna waa erey qeexaya habka cilmiyeysan ee wararka, xogaha iyo barnaamijyada loo tabiyo, iyadoo la adeegsanayo qalabka warbaahinta ee kala duwan sida wargeysyada, idaacadaha, muuqbaahinta. halkaas waxaa ku cad in isgaadhsiintu ay ka ballaaran tahay warbaahinta oo xirfad iyo cilmi la barto, oo ay tahay loona adeegsado qalab iyo qaab u gaar ah. ugu dambayn, isgaadhsiintu waxa ay la kowsatay nebi aadan iyo xaawa. hab kasta iyo heer kasta oo ay soo martayba, warbaahintuse waxay ka dambaysay xilligii la helay madbacadda oo ay ahayd bartamihii qarnigii 15aad ee miilaadiga. sadaradan soo socda ayaynu si kooban ugu soo bandhigaynaa taariikhda warbaahinta, iyadoo oo loo kala qaybinayo laba xubnood oo kale ah warbaahinta caalamka iyo warbaahinta soomaalida. xubinta koowaad waxaynu ku qaadan doonaa warbaahinta caalamka, waana qoraalkii sikariye xuseen.